عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكي مدرسة هالأبوركا iyo kulan kale oo barxadeed ayaan idinku soo dhaweynaya. barnaamijkan wuxuu khaas u noqon doonaa fanaan hore hadda fanaan maaha fanaan weyn oo aad loo wada garanayo mulaxan heesaha uu codadka u sameeyay ay dagaha dadka Soomaalida in badan ay gaareen idaacadaha Soomaali ku hadlana ay in badan ka baxeen nin odaya oo hadii alla ku roon yahay taariikh kule ee amuraha xagga fanka waqtigan iska cibaadeysta oo hawlaha fanka meel intuu dhigay hadii alla ku roon yahay aqalkiisa guriga uu ku nool yahay iyo masaajidku ay isku jiraan 5 mitir oo kaliya oo shanta waqtiba salaada jamaca halka kula tukada xaramka iyo xajka ku soo xarmaday oo hadii alla ku roon yahay aan ku soo kalifay in uu kamankiisi baladaynta soo qaato oo taariikh inuu wada xasuusiyo idinku fogeyn maayo waxa weeye fanaan Cabdiraxmaan Cismaan Maxabe wuxuu ku magac dheer yahay Cabdiraxmaan Dheere heesa aad loo wada yaqaan heesa badan oo uu leeyahay dadku ay inta badan dhegtay qalbigaba tan ay ku hayaan maxaan idhaahdaa hadii alla ku roon yahay soo dhabaale waa hadal hadana waa si gooniya maxaan idhaahdaa geesiga barbaarto calaf beeligeeyay geeriyaha joogto maxaan idhaahdaa hadii alla ku roon yahay ballan heestii ahayd ma soo qaataa Hargeysa heestii caanka ahayd hoobaalay gabayga way ugu horeysaa dhulka horumarkiisa aad ugu horeysaa maxaan soo qaataa laxmadii uu sameeyay la yaabka lahaa dadku aad u xasuustaan ummadii hay qabiilkii qarnimadu waa laba aan isqaadi karin oo weligood isqabanin farxadii waa naxdin rawaadi loo jiray arbaha uu ka noqday miyaan soo qaataa warba cashaq isla waqtiga isugu dhibay miyay ahayd waalidkii wadkiisa la wadaaga jacaylka miyaa markaan aan oran karaa riwaayado fara badan oo riwaayada naqas baa jacayl loo qori karaan ayadu hormud u ahayd ayuu fanaanku u ahaa rag budbiga u ahaa Cabdiraxmaan Dheere waxa uu ka soo jeedaa sidiisaba qoys caylad xagga diinta ku wanaagsan oo aabihii Sheekh Cismaan Maxabe wuxuu ahaa culimada reer Boorama ee la yaqaan isaga iyo adeerkii Sheekh Daahir waxa ay niman culimo saylis xagga diinta kama uu sii fogeyn xagga fankana waxa uu ku leeyahay taariikh weyn oo isaga laftiisu waxa weeye qoys xagga fanka aad ugu caanamaalay oo ay ooridiisa hadal ku roon yahay fanaanada caanka Aamin Cabdilaahi Xirsi ubadkiisina hadda fanka ay iyaga laftirkooda calanka u sidaan oo hodan Cabdiraxmaan Dheere aad loo yaqaan Cabdiraxmaan aad baan ku soo dhaweynayaa caafimaad iyo cimri dheer baan ku rajeynayaa barnaamijka madasha halabuurka ayaan kugu soo dhaweynayaa haddii dad badan oo aan kugu soo gaarin garoomadii lagu heesi jiray ama masraxiyadii ama dhulkii aan iskiin baro oo aan ku yiraahdo Cabdiraxmaan Dheere goormuu dhashay halkuu ku dhashay qoys caynkee ah buu ka dhashay sidoo ku soo barbaaray markii anu aan dhashay taariikhda lama aqoon waaye ma isii fogeen hadana adu kontomaadkii waxay hooyadii aabay igu yiraahdeen waxaan dhalatay waqti la yiraahdo xayskii fadhi weyn dadka qaarkood waxay leeyihiin waa 250 qaarna waxay leeyihiin waa 350 meel halkani muxuu ahaa galbeed muxuu ahaa xagga waqooyi naga xigta boorama waqooyi ka xigta aragaluug meel la yiraahdo oo halka ilaa maanta ba beertii intaana shakhsana ku taale caanka ahay dhinaca qorax ka soo baxa meel ah oo beerahay ku yaaliin halkaas aan ku dhashay qoysku beeraleyda xoolo dhaqatana way ahaayeen waxay ahaayeen waqtigii aan imika markaan taariikhda dib u eego waqtigii Soomaali xornimada ugu dambeysay waayo xor qofku wuxuu yahay markuu xiisa cuno markuu xiisa xidho ya markuu xoogiisa aamin waxaan garanayaa dhulkaas oo boholaha haru sanadkiisa ee boholaha haru ugu jira xoolaha meesha daaqaya dhulka daaqaya iyo deegaankaas sidoo yahay adiyaabayso oo ninku beertiisa wixiisa uga soo baxa waxana aan cun jirin marka dhibki isku eego iyo waqtiga dee xornimo waqtigaas ugu dambeeyay Soomaalida marka halkaas horta ku dhashay waxaan nahayn
hooyadii iyo aabbahay waxay dhaleen 7 qof way marka intii noogu weynay waxa lagu yidhi iyadoo yar ayay dhimatay way 3 inan iyo 3 gabdhood oo 3 gees ku xigaan 3 inana kors ku xigaan way 3 gabdhoodna ay hoos ku xigaan 6daas horta aabbahay dhalay way marka 3 inan kii labaad ayaan way محمد ود قرنس محمد دارك هو اسمه فنان واي انا كحيه واي من امك عسكري هو جوجدي هرقيس ميتري قرف واي حسين ليلى مش باقه هايست واي كاس اي وحي صدق قبل احسن وحي واي بريغا ددكو قرشي لها الموت واي saddexdeedii inan markuu aabahay eegay wuxuu ugu talagalay mid walba hawsha uu qabanayo oo qaban doono way anuu niyo malawan khayr xoog roonayo wuxuu ugu talagalay in beertaan qodmo waa tahay way labada ninna wuxuu damcay inuu wadaad ka dhigo oo quraanka barto way ninna iskuulada la sheegay ku daro hay xantii baan ogaadaan marka way labadii dib lagu diyaariyay labadii dibinidi way واتا markaasaan baxsaday way reerkii waad ka baxsaday way dhul ana weligeeba arag Itoobiyadaas ayaa loo quraan doontaa maqlay way oo dee dhulkani maartay malcaabadu iyo dad quraanka dhig waa iska yaray way yaraan way Itoobiya san tigid waata maalmaha ma ka ka baxay uma qola safaro gaas salan ka qaadaysa gaas ku Itoobiya kontrabaan buka gaas tifenus lagu shiri gaas tifenus way qola gaas salan ka qaado Itoobiya kiis oo aanan garanay ma iska raacay way ilaa iyo la faa'is ayaan gaadhay way dadku sidaas dee uma dhibin in kaga yaraa ambaniya markay arkeen ay xageed socotaa way islaan habaryartaya ayaa waxa lagu sheegay waxay degan tahay meesha leeyahay jigjiga way ya what halkaasaan doonayaa inaan tago quraanka igu dhigto way way wadaad baa lagu tagay markaa oo la jigjigi way wala lugeynaya markaa waa lugeynaya way awr baa iyo wax smijid what laska lugeeyo wadaadku soo lugeynaya way wadaadkii baan raacay oo xoogaa markaan la socday wadaadkii tii qola malaha ducaysanaysa reer malaha ducayam wax ay ka qabsanaya oo meel halkan baa arkay way sheekh wala dhaafin balay haye kiibu ducadi intii bolis mawlidkiina akhriyo way aan waska ag fadhiya haye hilib baan meesha ku cunayo maxaan aniga inta muddo soo socda what ما ماشي هي بيا راجل ولا كذي ولا شيء واي أرضك يا لوحنا وستة 1000 أنا ما قانت واي لوحنا وستة واي تذكر بك لوحنا أي سنة وأرضك أرض المطالب وحصوصي باللي واي هل كيف هذا وحلي بسي واي ولاد كمان سير راح واي ماشي تجي حسين اللي رامتك واي وداد عن المعذر نها مال ملعابة قوية هلكا هاي أيام كهالي واي يا هم معلم دبري ولا يلا واي معلم أدبر وقرا يلا نحرس واي كيوم بار كيس كأكفرس هاي مسجد ذوق أدي ما مكتي واي قبل القرآن يد تمر كسويري لين ماشى ولا وري جام واي واي عنتدي ولا السوري واي برامج كوري أي ديك بروح لعب طار مرهم قرآن خدون وحلا لهم إن هي بلبل بابا طلع يا سوق رفيسن هاي دوام ولا وري dad ku dhulka barwaaqo oo waa beeralay iyaga wax la soo iyaga wax la soo dadna ardayda way siiyaan wixii raashinayaan dar bay u goynayaan la wax siiya balodhan hay mar alla marka la warka adiga argo meelaha taag hay de wal ku raashin bal ku siinay waat raashin kaas iska isticmaal jiray maalintii dambe baa meesha de ma aqaano in gabadh bagan malaanin malaha jigjiga degana oo sarkalaha oo shaqeynaya xabashada waat ayuun bulin gabadhii si geeriyooday way geeridii ninkii yimid moogta waat geeridii ducadii ayaan tagay oo arday waqtigiisa ducadaas iska dee way dib ay guriga la hilib baa meesha la qaayay way li malu hilib cunaysid ya waat baalka hilib kana dib loo baahan ayuu fiican way malu cunaysid ma fiican caadiyad markaad mala sanad iyo laba sanad wala sarroodonay way marka meesha hilib baa lagu qalay hilibkii bande meesha maanta ka cunay haye ninkii dirawalka ahaa ee gaariga waday ninkii muxuu ahaa geerida yimid astafur geerida yimid ayuun baan markuu dibaxay noqonay baan ku arday baan ahay
يا قاري موتاتي السيقان هاي والسيقان وجبجبكي هاي إسلامته أضيق محوها أضيق عبرتي قبل وعلى ولد جري العفي بكون مقعد هرم واي العريس مقاحب ما تقولي وات جيجي مركي اللي جيم العفي اللي هنا يا اتصل حي واللي جيتي واي أضيق العفي أنا مركا وحن ربا أضيق كيف أيام بيردقون أبحي ولا لي واي وفيام بيردقون والله وات يا هاي يا خص عادي واي قول سلاسة عبرتي ركاب هاي دي ما جالسين تي مثلا مش بعين جالسين واي يا واي أيها المحاو أصير مرة أي صوت سلامتي عبرتي ما كان ماشي أبكي لي يسولي ويا محاو هو قبنا لي أيوم ما يرون ده واحد دوني إن ليجي فيام بيرو واي وضيب الله يقول فيام بيرو ليجي halkii markaan tagay in adeerkii u tagay laba dukaan oo waaweyn magaalada ku leeyahay kaale arag barwaaqada ay ku jiraan reerku laakiinse wax Soomaali ka yimaado dhan waa laga baqay waay odaygii adeerkii wuxuu yidhuun waa haddii laygu ka arko xabashada ay qabsanayso waay ya haye kuma hayn karayo haye faarax guuleed waad garanaysaa adigu waay aad baan u garanay faarax guuleed markaa joogo buu dib igu soo taray waay wuxuu igu soo celiyay dhulkan halkan muxuu ahaa jilicsan iyo agteeda meel la yidhaahdo ma kula la yidhaahdo furalkaasoo kula la yidhaahdo ayuu soo noqday waay niman aan ilmaadeernaha oo barqa shadarood garanay aw jaamca waad garanaysaa aad baan u garanay jawhar waad garanaysaa haye jawhar rag noocaas waata oo halkaa malcaabad ku dhigta ayaan helay waay halkii baan iska fadhiistay waay dhulku waa barwaaqo oo tuurtaasi dee aqal uma dhaafayso xaruudhada laga tubayo iyo dhulkaasi barwaaqo siduu yahay waay halkii baan iska fadhiistay waay habeenkiina dee kusoo yarayay reer waa tahay kowdhi haye 15 eede jis ay halka kusoo bartay waay reerkii gacantoodii looga farabaxay waay dee anaaba 15 jis maraya أنا بعد من شيء تمام جسم مري أصبرتي واسحري ما كان شيء توجه جسم مري أيها لك سوق قيد واي أنا كتاب كي قرآن كي وصل هي يا إلى عصاص اللي وآخر سنة يوم قلت أغوط أيها لك سوق قيد واي يا تعرفوا مركها واي مسلي مسلي حريتي حريتي مركها ولقات واي حريتي ولقات مركها ولقات أقول لك إذا مركها سوى الدريم سوى نكسب markan Itoobiya Soomaaliya culaad ay sii fogaanayso waa xorriyadii waat marka lagu markay rawan wax la isleeyahay waat adoo kitaab u taasoo noqday kitaab u taasoo noqday wax ku soo noqday way odagii islaanti demnin kitaabka inta la soo baxay quraanka ba akhriyaya ya wax kitaabka quraanka akhriyaya ma jirin aabay mooyaan aruusi mu arag waatay diwali cisi sheekh abalin way قرآن كتاب كان قاضي يا أبي هاي وأنا مركي أخري ما شاء الله ما شاء الله هاي واحد حط بويت واحد قدار كيف الدنيا وات صدق كيس إن عند ميان دنيا واي أبو أو محو الشيخ محمد المحوها واحد ليلة هذا وذيك المحوها الشيخ محمد باريلا هاي وهذا كان المحوها كنت ملعبت كلها يا هاي أيا ليجي واي شان يطبق الولدين ما شاء الله نوي ما خونه واي وحنا هذا بعض يقولون سكول هلا يطبق واي كود هي سكول هي يطبق ولكن من يدمي واي سكول كبير كان واي سكول كان إيمك الله يراهض محو الأقصى الأقصى لا ليجا لو رجري ليجا لو رجري واي هالكا صاح اللي كان يضل سكول لا قرية أيا واحد كان رواية واي iyo xaaj Yuusuf Qalile way iyo aabbahay oo socda waat ayaa oday la oran jiray muxuu ahaa maxay Chairman Abdullahi Chairman oo deegaanka haysta waat ayaa de magaal haysta way isaga ardayda qoraya mugto way isku wuxuu keenay muxuu ahaa akiba la keenay way markii la yiri quraanka quraanka markii waan akhriyaa meel kale ma leeyahay hay dharka leegiya way ninkan uu dheeraaday buu ku weynaaday waat waqtigii la qorayay iskuulka oo dhaafay ku weynaaday odayga riwaayan baa yiri waan markaanu adiga ku dooranay waa ninka noo qor أنا كنت doortay baan waay anaga noo qor muxuu ninka markaas uu daw ka dheeraaday
رواية يضرع كل ما واي أودي بكل بود مركان عادي كدورنا إن رد دورنا في يعني واي أودي والدجال كبلا كبلا فعل بس كبلا تمشي بلاك العظ حيه أردت هذا وحمات أردت وحمات واي محايا لا بل حيه ما أنت بخاف صون قلت وات حاج يوسف يا أبوي وتشلم واي وحال يجي أودي شيخ علم الثلان الله ها هي الله نحرست الله نحرست واي أقول جيد دكين ها هي أودي ذاك علماء إيه لقد ضمبية واوين إيه أبوي صاحبي يا وحال حصتي دي مع شيخ الشيخ علي بتلم بالحصص علم الثلان واي مركز على هذا محا يا مقالة تحيل لك واي حسوا شيخي وات يا هي مسكدار واي وات وسوقار لبض وسوقار مسكدار أي يا تقول مش هكا واي لأنك هكاسي ها نما كاسي أنا بقول إنك واي والجيد خبران دي وات يا هي. والجيد ما كان جلاس بكويا واي ومراد أنا نسحب ها وبرح كان ودس وات يا واي جلاس لبعض ضرب جلاس بكويا لمركا واي جلاس لبعض ضرب كي لبعض مركا الغرية وات هل كان قال لي صار واي. أباي وكهي واي. إسلام هذا يرتيه أو قليل لي هذا من حريستي ها هي قليل ورسمه واي هل كان دقني وات أيود دلوق هم واي دي هل كان صور حكم هيا دي هل قرا مرحبا ما قرأت وات إن سكوت كان دخل وحكم برا واي. ماشي هذا عد بوجوكتي هذه وذاك واحد وجوه واي أباي قال لي صاري والجد بيجي واي ولا يشيخ علم طلب بوتكي واي الله من حريستي وات مركز في دواك أنا كان وضع واي شاعر مثلا كيدو ماريا ما كيبغوا يلا الشيخ ده مقالة اللي عسي ها ما كان هي مسكدار واي وحنا واحد نص وكاله نكنا وين القرى سكول واي يا وات سكول كيلو سيدي با لغو قري لا يقرأ واي waxaan garanayaa iskuulka markaa ها dadkii meesha laga qoray saddex nin baan ugu dhaadheereen ugu وات واي saddex nin أيها الواوين ayaan ugu wax kala cawr yeelan bahay واي annagu de qolo muxuu si kale loo lagu أيتي waan dhaafnay de قل قرآن صبر تورق وضيالة waqtigii waxbarashada. وات هي dee meeshii annaga iskuulkii carruurtii jimcaha marka jimcaha mawlid baa la akhrin jiray واي waan garanaya marka jimcaha intii shaahiya wax la iska ururiyay هاي ayaa galaaska mawlid lagu akhrin jiray وات dee aniga mawlidka akhrin jiray dawladda ma hayo ولكن وات dayliga akhrin واي saan sidii ugu jiray ayaa magaalada buura markaan imaa ها meesha tan dee waddankii indhihii baa ku kala baxay واي dowladnimadii iyo ها wixii idaacadaha ka socday iyo وحي بقى waddanku siduu yahay ها هي dee waxaa soo socota واي galaaskii afraad markaan marayay ayaan ciidanka isbaray markaa وات ciidankii أي صورت ayaan isbaray هي maalin unbaa annaga oo quljeed degan Ha. oo quljeed fadhina unbaa la yidhi idaacadda reer hargeysa baa laga sheegay واي maalinta taariikhdu caynkaa iyo caynkaa ay tahay ها ciidan baa laga qorayaa بورم boorama واي saacadda هي saldhigga booliiska hortiisa Ha. la isku yimaado واي gawaarihii waxaa samayn jiray inta markaa gawaari way yararag وات halkii baan tab ka soo idhi واي markaa maanta waa berri moogta وات halkii baan ka soo lugay واي reerkii baan imintay واي habeennimadii هي soo maray reerkii ها aroortii halkii baan kasoo kalaha واي ya هي markaan meeshii istaagay ها 10 nin ee u horreeyey ها ya ee la qaatay Ha. ayaan ka mid ahaa دير وقروح سنبات هيدي هذا ها. الكوري واي إنا يرى inaan yaraa واي nin la yidhaahdo waan garanayaayo ها ciidanka quruxdiisa ها dee ninka malaha ciidanka noqdaa ها ee milatariga berigaa galaa وها يعني wuxuu ahaa nin dee جامعة قال dee wax ka daran واي وات ninkaa hebel baa milatari la qoray fuuraha waan garanayaayo ها waxaa naga horreeyay 2 nin واي oo milatari la qoray وات nin cabdi axmed baa sayidkaygu ahaa واي ninna wuxuu ahaa nin kale oo iminka magaciisa aan lawsanahay وات markaa labadaa nin ها dee reerahoogu way iska jannaysay واي dee hebel iyo hebel milatarigiibu galay أي اللي yaa la odhan jiray واي dee halkaa maad gaadhaan حي markii koonaha laga soo saaray ee halkan la fadhiisay ها unbaan haddana goor dambe arkay ها maxamed cusmaan ها walaalkay ورا لك أي كوينة ها حي isma mee halkaas فرديا واي hol soo qor وات isagoo reerka janoobe baan حي war adu calaayi xaal markii
dee caafimaadkii iyo wixii lanaga qaaday ciidankii dee hawshoodii dhamaysteen unbaa gawaari daf iyo midhiq la yidhaha oo markaa dadku dee waxay odhan jireen waa duulista markuu duulista bool baa uga hadhay waayo uu duuli lahaa haddii bool aad buu u tegey mogta gawaaridaas kululna way lahaan jireen barnaamijkan madasha hal abuurka ayaan qaybtaa halkaa ku joojinayaa fanaanka weyn cabdiraxmaan cismaan cabdiraxmaan dheere qaybihiisa kale ayaad la socon doontaan haddii baydmo qaybtan halkaa inoo joogto